أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وآيات عجيبة والله سبحانه وتعالى كجه الله قبيلك sababtuu u sameeyey allahna wuxuu kaga hadlayaa darajada iyo sharafta iyo qiimaha waxyaabaha lagu helo buu allah subxaanahu wa tacaala aayadda oga hadlayaa. waa aayad u baahan in la fahmo si ay u istaagto qabyaaladda iyo quranka la isku takoorayo. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay dadow annaga baa idin abuurnay, waxaan idin abuurnay lab iyo dhadig adinkoo ah, waxaan idinka yeelnay qabiilooyin iyo shacbiyaal baan idinka yeelnay. marka waxaan u sameynay qabiilooyin iyo shacbiyaal litacaarafuu inaad isku aqoonsataan, aad isku garataan aniga reer hebel baan ahay, barasho wanaagsan inaad isku barataan. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay midka idinkugu sharafta badan, idinkugu qiimaha badan waa kan midka allah subxaanahu wa tacaala ka cabsado. allah subxaanahu wa tacaalana wax kasta waa mid og. marka qabiilka allah subxaanahu wa tacaala uma abuurin in la isku takooro, in la isku naco, in la isku dilo. allah subxaanahu wa tacaala uma abuurin, wuxuu u abuuray litacaarafuu. marka siduu allah subxaanahu wa tacaala qabiilka u abuuray aan u isticmaalno. marka waxay ahayd wacyigelin yar bay ahayd. marka allah subxaanahu wa tacaala kuu ka cabsado allah inaga dhigo markasto diinkiisana ku dhaqmo insha allahu tacaala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.